waxaan rabaa dhowr meelo yar inaan taabto waxa jiro perception aad u qaldan oo jiro out there oo gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka ugu yar qurba joogta and that is perception jira waxa ay tahay Soomaaliya waa meel inta tagto lacag badan ka sameey karto muddo kooban adduunka soo ma shaqeeyo marka qofka doonaya inuu yiraahdo Soomaaliya intagaya 2 bilood aan reach ku noqonayo must be qof corrupted ah oo tug ah umaduna dhaca raba noqonaysa ganacsiga adduunka meesha ka joogto iyo Soomaaliya meesha ka joogo waa isku mid procedure u baahan yahay process u baahan yahay investment u baahan yahay evaluation u baahan yahay ka shaqeyn u baahan yahay marka conceptiga Soomaaliya tag ganacsi dhaqso ka furo lacag hore ka sameey ma jirto marka imaanayso you have to come mental set ka qabtid oo caalamka nala timaado that is a very important tip wana muhiim in laga shaqeeyo marka ganacsiga qorshe u baahan yahay marka imaanayso dalka waa in qorshe la timaado haddii qorshe la imaan qatartiisa leedahay waxa laga yaabaa ganacsiyo badan fashil aniga waxaan aqaanaa tuulooyinka mid tuulooyin Soomaaliya aniga aan tagay isbitaal baa lacag la iska soo aruurshay Soomaali badan baa lacag aruursay million and half isbitaalkii baa la furay isbitaalkii markii isbitaalkii la furay waxay dareemeen isbitaalka lacagta lagu dhisay waxa ka qiimo badan lacagta lagu maintain gareynaa inada waxa u baahan tahay isbitaalka dhakhtarkii nursigii shidaalkii 24 hours a day gaarigii and so on so therefore ismii kaliya ma school u dhistay qaraabadaada ama familkaaga tuulo uga dhistay oo aad ka tagtay faa'iido ay dhalaysa malaha marka economic ganacsiga laftigiisa waa nooca wuxuu u baahan yahay systematically structured inaad ka soo fikirto inaad sidaad adoo ganacsiga galay New York ama London ama mataqaana Helsinki inaad samaysid oo ka ganacsatid waa inay jiraan dhalinyaro badan oo xaqiiqdii dad badan oo Soomaaliyeed marka waa very important arinta laga faham guud inaad ka qaadato deegaanka arabta ganacsiga gelisid waa inaad fahamsanaata dynamics ka localka ka jiro waa very important waxa jira meelo yar yar oo lucrative ah oo business Soomaaliya aad ku anfacay tusaalaad waxaan ka soo qabanaynaa magaalada Balcad oo magaalada Muqdisho 2 kiiloomitir u jirta waxa ka jira laba ganacsi aad u xiiso badan dad Soomaaliyeed dhalinyaraha sameeyeen igul waxaan ku arkay deegaanka mid gobolka Sool inay ka sameeyeen ganacsatada Soomaaliya waxa laga sameeyay beero lagu sameeyo waxa la yiraahdo malabka beerahaas dhalinyaro soo baratay taqasus qaatay yimaadeen deegaanka da Sool aan ka sheekeynaa deegaanada kamid ah taqaana sidoo kale meelaha ka yimaadeen kamid tahay waxa kale oo jiro greenhouse lagu sameeyo wax la yiraahdo qudaarta oo nin saaxiib aan uu sameeyay oo hadda is very highly demanded mataqaana quality-ga production-ka aan beeraha soo sameeyay aad u limit u yahay marka dadku markay arkaan service-ka noocaas waa very creative waa service dhaqaalihiisa xaqiijisay ahubtu waxa rabteen ka imaanayaan وانا مهم وحا قضب مدن بي مهم هتاي إن أدوك فكرة أردت الأحرير سكورتيجا هذا السكورتيجا وربه هنا دبعت علص أيا كي مانيسو إن أو دبعت كي مانيسو وحنا بمركا أن كوسو أفجريا أنا أد بكجمع علنا دقيس التاني تطبق قضب مهمة أو طلعها يعني طبعا أنا سوي جديو ونسلي وحوي بيدو كورن دونتا أما أندوني إن أنا هدي الله سبحانه وتعالى ضل كان هجان عصب وهلا وحنا رجينا هجان عصب oo fahmi karo dynamics-ka iyo complexity-ga global business inuu imaan doono yani shacabkii diyaar u ah dawladnimo shacabkii doora inaan ka baxno xaaladan critical-ka ah laakiin nasiib xumo hogaankii hadda xubin ka jiro meel ka soo ka jiro malaha yani understanding complexity-gaas iyo sidii loo address gareyn lahaa therefore waxaan u baahanahay inaan maskaxda shiiloon xaqiijino marka waxyaabaha lama quraanka u ah sidii ganacsatada أما دتك دونا يقرب جوكت دلك إنه هنتكش الآن دور قضب وحواي أميد بقى أرنت حكمنتي سؤال أنت أمنية ميل أن أمني كجرين وأذكت أن investment كوسمس that is business كوجور globally context هو you cannot do business هذا قبل وحلي هذا أمني وسنجرين أرنت أسوأ أرن قطرت هذا له مهم كذا لمركب وأنا لقى شقيا سو دولتها soo socda ama xukuumadda imaan doono focus-ka wuxuu noqonayaa in la abuuro environment qofka intuu yimaado oo ganacsan karo asagoo hantidiisa wato number 2 investment laws qofka Soomaaliga markuu lacag meel gashanayo for example haddii maanta lacag gashanaysa magaalo kamid dalka wadamada ay joogtaan qodobka ugu horeeya waxa jira structure dawli ah oo soo gal ka dhigaya lacagta in la isticmaalin in lacagta ka lagu soo celin karo in lagu xadud karo marka waa in sharci jira difaaci karo alaalin karo xuquuqda sharcigaasna ma sharci qabiil علين كرو شرعي معها أو شخصيات علين كرو of course قبلك مهمة قاسم ولا وانا عاون دورة لكن وأنا نقطة الشرع السوري قال كده قفك سومالي حق يسا هنتدي يجرتان كيسا اللي دفاعه مركا investment laws بدنا على بريه شروط بدنا على بريه لكن دي بالله قلنا نقطة اللون باهي بلنا قياستي الصح مقالات كوجر لصحه سي الله حقيقي جناح سيجا سومالي ده جدها سومالي حق أولى إلا بالبادية تصالي رأي نسيكرها يعني واحد جرو جناح سيجا بدنا كونتركت الأوجل ماشي لا UN أو أي
almost ku baxdo close to $1 billion a year lacagta inta badan ganacsigaas inta badan xilliyadii ugu dambeysay laga soo bilaabo intii inceptionka Amazon mataqaana 14 sano ka hor inta badan ganacsigaas contract waxa la siinaa dad ajnabi ah sababta waxa la yiraahdaa capacity Soomaali malaha of course the capacity way timid ganacsato badan oo businessman ah oo sophisticated ah woman ah oo ajir caalamka oo lacagtii leh qaban karo hadda marka waxa bilaabatay in la yiraahdo miiskan soo saarno wixii jiro tender ha dhaco qofka Soomaaliga priority lagu siiyo waliba meelaha qaar kood hadda waxa la gaaray in la yiraahdo wixii ka yar $1 million qof dibadda lama seega qof Soomaali la sii kara soo daa waxay abuuraysaa ganacsi local ah oo sameysmaa marka sharcigu markaan ka hadlayno muhiimadaas qaaska u leeyahay arrinta kale oo muhiimka ay tahay waxay tahay arrinta cadaaladda ganacsi ma jiri karo haddii cadaalad jiro that is a fundamental that is number 1 adduunka meel ka jirta malaha therefore aniga dhibaatada haysto ugu weyn waxay tahay cadaalad darro jirto qofka Soomaaliga waxa la rabaa ama international investors ka markuu Soomaaliya yimaado diyaarad airport ka soo qaato hotel visa mastercard ku register gareysto meesha uu rabo to ganacsi u dhisto warqad ka soo qaato wasaaradda asagana xaqiiqdiisa la ilaaliyo kan Soomaaliga ee ajnabiga iyo kan Soomaali labadaba ay u baahan yihiin therefore cadaaladda waa fundamental and failure hadduu jiro dalkeen oo arrinta cadaaladda and that's meesha focus ka rabno inaan saarno anaga in dib loo soo celiyo in aragteen ma qaan cid ka hadlaysa cadaalad ma jirto muhiimad ma as matter of fact waxyaabaha ugu liito jaamacadaha laga barto Soomaaliya hadda markaan joogno waxa waa shuruucda waa markay muhiim ah marka Mareykan joogtana waa ogtaa marka jaamacad $100 ku soo dhigto 4 sano baarka imtixaan ka qaaday baarka license ku siinayo you have to renew every year because priority ay leedahay in school sharci gasho ayay kamid tahay qodobka afraad shanaad iraahdo banking system ka hadda jiro ma aha waa lagu dadaalay waa la sameeyay laakiin muhiimaddu waxay tahay in ka shaqeeyno structure banking system ka ah oo muhiim noo ah anagoo dhan wadan ahaan waxa jira marka qadiyado badan ah jiro waxaana moodaa inaan focus aan la gelinayn hadda waxa jiro central bank ee Soomaaliya qabta federal government marka tusaale soo qaadano wali ma lihin wax la iswaftigii transferka lacagta waa qabnaa bangiye kala wakiilo naga ah wali structure-kii ma bilaaban wali waa urdun laakiin muhiimadda waxay tahay si loo xaqiijiyo in qofka Soomaaliga iyadoo lagu eedeynay inuu tug yahay ama lacag xaday in loo suuri geliyo inuu meesha ka bixinayo oo ka bixiyo waa beer lagu difaaco la qadariyo la sameeyo marka waa muhiim banking system laga sameeyo arrinta kale oo muhiimka ah waxay tahay laxaad waxa la yiraahdo musuqmaasuq meel looga baxsan karo malaha adduunka oo ka jira Africa ku jira meel kasoo ka jira laakiin waa muhiim in next 4 years oo yaraan aan waqti gelin in musuqmaasuq yaraado qofku ku yiraahdo musuqmaasuq baabina been oo sheega markii ma la baabin karo nasiib xumo laakiin injil waxa la soo gaarsiiyay condition oo musuqmaasuq dhibaato gaarsiin shacabka Soomaaliya amba qatarna gaarsiin anagu dhan marka laga fiirsho maalgashiga caalamiga soo dhaweynta in la soo dhaweeyo maalgashi caalami ah laakiin la xaqiijiyo in aan lagu tuman lagu ciyaarin dadka Soomaaliyeed ee ganacsiga cubdanka leh oo ayaga la siiyo priority ay leeyihiin laakiin ayaga la soo dhaweeyo mataqaana ugu dambeyntii waxaan ku soo afjarayaa waxa la muuraana in la sameeyo oo markii ugu horeysay given hadda qodobka soo qaadatay muhiimadiisa leh waxa muhiim ah in debate-ka noocan camal ah inta ballaarto la soo geliyo dad badan Soomaaliya because Soomaaliya nolosheena diaspora ku xiranta marka waxaan qabaa anigana soo jeedina qorshaheena uu yahay in la abuuro wasaaradda diaspora wasaaradda la yiraahdo wasaaradda qurba joogta oo suuragal ka dhigta fududeyso ina ma kartid ina maxaa su'aalaha hadan caawis weydiinayna waa ina meel waa ina qabtaa focal point ka sameey kartid wasaaradda marka waxa la rabaa inay yeelato number 1 study regular la economic opportunity ka jiro si loo accommodation lagu sameeyo lahaa dadka qurba joogta ay rabo wadanka inay maal gashadaan laga sameeyo security go si loo difaaci lahaa iyo wax la yiraahdo mataqaana center point where inta Facebook ay alaada mataqaana website amba site active oo e-commerce ay tiraahdo I need to know inaan rabo waxaan rabaa inaan ganacsi gasho Soomaaliya meel A and B and therefore how do I go about inaan laga fikir laftigeeda la sameeyo marka muhiimadda leedahay aad inoo qusaysaa barka jiritaankeena nolosheena ayaa ku xiran magaalooyin waxa jira Soomaaliya maanta aan shaah laga cabaynin hadii diaspora lacagtooda doostaan corona dhacay wuuna taabtay qurbaha qofka aan shaqeyn lacag ma soo diri karo nolosheena ku xiran marka waa la muhraan inaan structurally ta ka dhigno si looga faa'iideysto laga dhigo marka aad iyo aad kaga mahadcelinayaa fursadda ay siiseen waana ku mahadsantihiin waana ka baxay mahadsanadiin aad iyo aad baa u mahadsantahay musharax Jibriil Cabdulla